wafdigii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uga qayb galayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta ka soo degay madaxda caalamiga ah ee magaalada Berbera isla markaasina ka soo guriyay noqday kadib markii uu shirkaasi uu dhamaaday waxaana madaxda magaalada Berbera ku soo dhaweeyay wafdigaasi mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera mas'uuliyiinta dekada iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha laamaha dawladda wafdigaasi ayaa markii ay soo gaareen madaxda magaalada Berbera wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa ka waramay shirkaasi iyo waxa uu ku soo gabagaboobay isagoo sidoo kale tilmaamay qodobo badan oo muhiim ah ay ka doodeen labada dhinac intii uu shirkaasi uu socday waxaana uu tilmaamay in inta badan ay ka hadlayeen isla markaana ay kamid ahaayeen qodobada ugu muhiimsanaa sidii dalka Soomaaliya uu ictiraaf ilaa madax banaanida iyo jiritaanka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudadii dhowrka cisho ahayd wadahadalladaasi socdeen waxa labada geesoodba ay ku soo qaadeen oo laga hadlay mowduucyo aad u ballaaran oo isugu jira qaar xagga siyaasadda khuseeya arrimo ku saabsan xagga nabadgelyada arrimo ku saabsan dhinaca iskaashiga iyo xiriir wanaagga iyo wada shaqaynta intaba wuxuu ahaa shir aad iyo aad u ballaaran oo arrimaha culus aan ka hadlayo laga wada hadlay matalan arrimaha xagga siyaasadda qodobada ugu shilisaa waxaa ka mid ahaa qadiyadda madax banaanida iyo ictiraaf doonka ee Soomaaliland waxaanu si ballaaran uga hadalnay qiimaha iyo macnaha ay ku fadhido xorriyadda iyo madax banaanida Soomaaliland iyo himilada shacabka Soomaaliland ay leeyihiin dawladdiisuna ay ku matalayso oo ay noqoto qaran iyo xukuumad iyo dawlad madax bannaan oo xubin buuxda ka noqota ee beesha caalamka waxaannu cadaynay arrimahaas inay yihiin arrimo aanu caalamka iyo Soomaaliyaba uga fadhino ogolaansho iyo wada shaqayn iyo soo dhaweyn hase yeeshee inay yihiin dhinaca kale arrimo qarankan uu goostay oo aan talo iyo gorgortan cid kale aan laga gelinayn wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa sidoo kalena tilmaamay in kulan noocan oo kale ay labada dhinac isugu yimaad doonaan muddo 120 cisho kadib wafdigaasi ballaaran ee ka soo guriya noqotay dalka Turkiga ayaa maantaba u soo ambabaxay dhinaca caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaa sidoo kale wafdigaasi kamid ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda madaxtooyada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xubnaha ka socday madaxtooyada iyo wariyaalka kala socday telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii dhexmaray dalalka Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya ee ka dhacay wadanka Turkiga magaalada Istanbul warbixin amuurta ku saabsan waa kan wariye Xamse Cali Bulbul oo arinta inoo soo diyaariyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Maxamed Yuusuf waxa uu soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii Istanbul ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waraysi kooban oo TV-ga qaranka ku siiyay xafiiskiisa ayaa waxa uu gudoomiyuhu ka hadlayaa aragtida golaha wakiilada shirgudoonka ee go'aamadaasi waxaanu yiri waxa ka soo baxay saddex qodob ay ahaayeen qodob ayaa ugu muhiimsan qodobkaasi wuxuu ahaa ka hawada dhulkeena si aad la socotaan waxa weeyaan arrintaasi muddo la isku haystay iyadoon la nagala tashanin ayaa la yiri waxa leh hawada Soomaaliya ayaa leh ta Soomaaliland iyadoo ku jirta xukunkeedii iyo nidaamkeedii waxeedii iyaga lagu wareejiyay taasi imika waxa lagu dhaweeyay heer wanaagsan ayaa lagu dhameeyay waxa la yiri waa in loo sameeyo guddi technical oo maamulo oo la socdo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka midaysan yihiin caasimadana waxa laga dhigayaa Hargeysa kolka qolo walba wixii dulmara hawada inteeda ayay yeelanayaan guddigaas ka shaqeynaya deesan doonayay ku dhamaatay midda kale waxa weeye qodobka labaadna waxa weeyaan in shir dambe la isugu yimaado 120 maalmood kadib Istanbul lagu shiro iyo qodobka saddexaad oo ah in shirarkaas ay sii socdaan intaba wax dhibaato ah oo Soomaaliya u leedahay faa'iido ahayn ma jirto because
haddaynu kol doonayno inayn madax banaanadeenu la soo noqono qoladay wax naga xidhan tahay waa Soomaaliya weeyaan in mufaawadada la wado oo adduunkuna uu ogaado haddii la isbari waayna adduunka ku dambe soo dhexgali doona